waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku boorinayaa culummada salaadiinta ganacsadaha siyaasiyiinta maamulka dibad iyo daaqil ba arrintaa in maaragtay afkeeda la qabto oo laga hortago oo wixii horto naga dhintay maahna wax dambe aysan naga dhiman islaamka oo dhan meelay joogaan way ka xanuunsanayaan wixii shalay halka ka dhacay waxaan leenahay marka dadka walaalaha ah wixii dhintayna Allah u naxariisto wixii dhaawacana Allah boogadhayo dib dambe aysan dhicin arrintaa loo kaco loo istaago ayadoo Ilaahay darti loo yeelahayo ayadoo Ilaahay darti wax loogu qabanahayo sidii shalay taba xalka looga gaaray yaan laga seexan maantayto alfitnatu naa'ima fama istayqadaha fa'alayna 'ala Allah wal malaa'ikati wan naas ajma'in fitnadu way hurudaa laakiin qofka kiciya Ilaahayna caladiisu ha ku dhacdo iyo malaa'ikta Ilaahay wuxuu ina kala tagay jaahilnimada xumaanteeda iyo faanka laandheeranimada iyo qabiilka lagu faanahayo Ilaahay wayna ka dhax qaaday nabiga wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi ummadayda kamid maaha ninka qabyaalada u dagaalama ninka qabyaalada taageera ummadayda kamid maaha dhibba wuxuu ka dhacay shalayto dad walaala oo culummo ah oo wadadaga oo wili xididkiisa taasa waxaan ku baaqaynaa anoo culummada afkeeda ku hadlahaya nabadgeliyo waxaan leenahay dadka dhintay Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Allah boogadhayo dadka kaleeto oo cuqdada iyo xumaanta qalbigooda soo galayna Allah qalbigooda wanaag tuso Ilaahay wuxuu leeyahay fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin waanadu waxay anfacaysaa dadka wanaagsani waxa la rabaa culummadu iyo cuqaladu iyo nabadoonadu marka ay hadlaan ee wax lagu heshiyo ittifaaqiyad lagu galo in siday ahayd ay u shaqayso oo waanadii dadka muuminiinta ay anfacdo ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay hadda ka hor bay ahayd hawshan wixii afkiya gacnaha la qabtay la iskugu yimid labada maamulba maamulka walaadka Puntland iyo Galmudug odayaasha ikhtiyaarta waxgaradka waxa laga gaaray xal waxaan leenahay sidii oo kaleeto ha ka daalinina odayaasha iyo ganacsadayaasha iyo siyaasiyiinta iyo labada maamul iyo dhalinyaradu intaba ha ka qayb qaateen arrintaas sida loo damin lahaa maxaa yeelay waa fidno alfitnatu naa'ima fama istayqadaha fa'alayna 'ala Allah wal malaa'ikati wan naas ajma'in fitnadu way hurudaa laakiin qofka kiciya Ilaahayna caladiisu ha ku dhacdo iyo malaa'ikta fitnada waxa la rabaa inaan la kicin inaan la qasin inaan la dhibaatayn ayaa la rabaa qof haday wax ka dhacaan ma aha bulshada dhan inay raali ka wada tahay waxa weeyaan in dadka kale ay ka hortagaan oo gacnaha la qabto maxaa yeelay nabigu wuxuu yiri dadku waa dad doon saaran laba dabaqa qolada dabaqa hoose saaran haday dhahdo annaku qoladaan dhibi mayno halkaan baan biyaha ka jeexanaynaa oo ka cabaynaa qoladii kor saarnaydna aysan gacnaha qaban marka waxay noqonaysaa labaduba inay halaagsamaan oo doontu ay degto nabiga salawaat saaraya ragii muhaajiriin ah ee Makka ka yimid darbaaxay wiil muhaajira wuxuu darbaaxay wiil ansaar markaas yaa tolbeelayay buu yiri qabyaalad buu kiciyay nabigana wuxuu in Allah qad dhahaba ankum ubayyat al-jahiliyyah wa fakhraha Ilaahay wuxuu ina kala tagay jaahilnimada xumaanteeda iyo faanka laandheeranimada iyo qabiilka lagu faanahayo Ilaahay wayna ka dhax qaaday waxa tiin banu aadam baatiin nabiyullaahi aadamna turaab buu ka ahaaday dadku waa laba qaybood dad ahlu jannah iyo dad ahlu naar labada qaybood weeye yaa nabigu ku sheegay salawaatullaahi wa salaamu alayhi qofka marka qabyaalada haysta oo dadka kicinaya oo dhibaatada sameynaya wuxuu la mid yahay bahalka la dhaho xarwalwaalka ama doorshaanka oo markaas saxarada afkiisa ku riixaya liyad'anna rijaalun faqrahum bil aqwaami rag waxay ka tagayaan faanka ay ku faanahayaan qabyaalada iyo laandheernimada iyo dadka kicintiisa
إنما هم فحم من فحم جهنم وادحل قبيالة جهنم حق إذا كتمد شذي صدتك أو لا يكونن وحو أهانا هي أهونا متك حقرا من الجعلان بهلك حرو الوالك أما الدورشانك كاسو يدفع بأنفها أتنة كره بتعف كذا محان كلها هي السحرة أو كقبيلة ليست أساسا النبي كل شيء نبي جوحي يري صلوات الله والسلام عليه ومضى إذا كمل ما نك قبيلة أو تقالمه لينك قبيلة تاجرة ومضى إذا كمل ما حان مر لبادية مر صدحات عن كبورنا إياه علماء صلادين تا كان عصدها سياسيين تا معمولك دبدي داقل بحرين تاجين مارتاي أفكي هذا لقبته أو لقى هرتجو أو وحي هرتو نقدر نتي معنا واحدة بايسا نقدر sidaas ana xalku ku jira waa dad wada dhashay ayagana waxaan leenahay ilaahay ka baqa bil ramadaan baa lagu jiraa bil khayr badan baa lagu jiraa waa bishii maghfirada waa bishii cidqiga waa bishii raxmadda hal laga faa'iideysto dib dambeeto yuusan dhicin islaamka oo dhan meelay joogaan way ka xanuunsanayaan wixii shalay halka ka dhacay waxaan leenahay marka dadka walaalaha ah wixii dhintayna الله ونحريسته وحي داوعنا الله بوغدايو دب دنبيتيسان دحين arrinta loo kaco loo istaago ayadoo ilaahay darti loo yeelahayo ayadoo ilaahay darti wax loogu qabanahayo sidii shalay taba xalka looga gaaray yaan laga seexan maantayto waxa weeyaan waxyaalo waxa jira salaada iyo soonka iyo sakada aan lagu dhaafin laakiin islaaxa lagu dhaafo beenanaaska marka islaaxa aan ka wada shaqeyno intaas aan ku soo gabagabayn lahaa maqaaladayda waa Cabdiraxmaan Aadan Cali Yare oo kamid culimada Soomaaliyeed kuna hadlahayo culimada afkeeda meel walba ay joogaan kana xanuunsan dhibaatada dalka ku soo noqonaysa culimadu ay ka xanuunsanayso iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh